ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو عالانكاغو كارباي عودكا إيو فرتادو عودكا إيو فرتادو عودكا إيو فرتادو عودكا إيو فرتادو علانيو دستوريو علانيو دستوريو الشادادي ويان عودكاغا سيلاين علانيو دستوريو علانيو دستوريو الشادادي ويان عودكاغا سيلاين عرددا حلكا روا عرددا حلكا روا أمدي هاي عقيبيو maanta waxaan isugu nimid saxiixitaanka xeerka habdhaqanka saxaafadda ee muddada doorashada madaxtooyada ee 2017 inagoo ku xisaabtamana ahmiyadda weyn ee saxaafaddu ay u leedahay bulshada oo ah inay gaarsiiso xog sugan xeerkii anshaxa saxaafadda ee doorashada madaxtooyada 2017 kaasoo muddaba sugaynay in aanu maxayday kala saxiixano oo ah xeerkaynu uga hagi doona doorashada waqtiga ka horeeya waqtiga doorashadu socoto iyo waqtiga ka dambeeyaba intaanay soo bixin natiijadu waa saddexdaa waqti baynu maraynaa saddexdaa waqti markaa mas'uuliyad baa inaga saaran inaynu dadka u tabino muwaadiniinta guda iyo dibadba loo tabiyo war saxa la hubiyey la shaandheeyey dhinacyo badan la iska taagay isla markaana aan ka hor imanayn anshaxa aynu maanta kala saxeexanayno iyo diinteenna islaamkaba aan ka hor imanayn oo ah inaan dadka la iska hor keenin inaan waraan la hubin la gudbin inaan doorashada iyo systemka iyo siday u socoto aan la qaloocin oo aanu inagaga hor iman war yaroo si sahla inooga baxay marka haddana waxa la gelayaa waqtigii ugu adkaa waxaanu iyagana kula dardaarmaynaa in xisbiyada ay dhex u noqdaan jadwalkan aan u soo dejin doono haddaanu commissionka nahay lagu camal falo oo la siiyo xisbiyada waqtiyo ku habboon oo haddii xisbi la siiyo prime time ka kale ku xigana la siiyo prime time-ka mid la mid ah ka ku sii xigana la siiyo prime time-ka mid la mid ah oo siduu ilaahay inugu og yahay ee aynu u dejinno ee aynu xeerkaana ku seexno hadday tahay wasaaradda maxayday wacyigelintu ay u hirgeliso iyo hay-adaha hoos yimaadaaba xisbiyadana waxaanu faraynaa inaad ka dhowrsanaataan wax kastoo anshaxyada aynu kala seexanayno haddii kii hore aynu kala seexanay tahay hadday anshaxa ololaha lagu gelaya tahay hadday anshaxa doorashada lagu gelaya tahay inaynu ka dhowrsanaano wax kasta oo iska horkeenaya ummadeennii ama kala qayqaybinaya ama kala qoqobaya intaa inaynu iska ilaalino anshax markii la soo qaado la yiraahdo waxaan waa arrin anshaxna waa wixii waxa xun uun lagaga fogaanayay mar walba oo waxaasan loogu dhaqmaayay marka taas ereyga qudhiisa inaynu fahamno oo inuu siduu yahay inuu hirgelino horta waa waajib meesha inaga saaran waxa weeye markaa saxaafaddu ama mid madax bannaan ha ahaato ama tan xukuumadda ha ahaatee waxaynu u baahanay waxa weeyaan in wixii aynu ku heshiinay oo isla garanay in la fuliyo oo siday tahay markaa loo fuliyo loona hirgeliyo taas uun baynu ku badbaadaynaa dalkani iyo qarankani wuxuu u baahan yahay badbaado erey yar oo la qoro oo wax la yiraahdaa wax badan buu baabi'inaya ama duminaya ama uu dhalin karaya marka si aynu taa uga fogaano waxaynu doonaynaa inaynu taxadiro oo taxadir weyn aynu samayno waxa markaa doonaynaa inaynu ka fogaano wax allaale wixii been ah oo haba yaraatee aan sal iyo raatoona midna lahayn ayaynu rabnaa inaynu ka fogaano waayo taasi waxayna dhalansiinaysaa dembi bay keenaysaa dembiguna dabcan wuxuu ku hogaaminayaa cadaab iyo naar ayaynu aakhiro iyadana ay markaasi inoo horseedaysaa amaba ay keenaysaa marka taasi aynu isaga ilaalino waa inaynu ku dhaqannaa sidii ilaahay wax inoo faray inaynu ku dhaqanno aynu ku soconno bay tahay
xogta iyo wararka la helayaana inay noqdaan kuwa sugan waxa la qoraayo ama ha ahaato mid shariid lagu qoraayo ama mid television laga hadlaayo ama mid website la gelinayo nooc kasta ay tahayba waa in xogtu ay tahay xog baahsan oo la xaqiijiyay oo markaas noqota mid lagu dhaqmay hadii kale to waxay noqonaysaa xog la'aantaasi qofkii wuxuu qoray waxa laga yaabaa inuu inta la beeninayo ama la ogaanayo ay ku baaba'aan ayaaba dhici karta marka waa xog mooge xaajo waa dilaa in aynu wixii iska hubsano oo si fiican aynu u hirgelino ayaynu u baahannahay oo aynu taa ku adkaano xarun walba oo musharaxiinta ah 3 shaqaale ayaan u soo dirnay wariye iyo cameraman iyo editor ayaan xarun walba u soo dirnay wadani iyo kulmiye iyo maxaan ku raahdaa iyo cudba saddexda xubnood waxaan ugu talagalnay inaanay markay la socdaan inaanay editingkii waxaas oo aanay ku habsaamin xagga xarunta iyo waxaan kaas isla markiiba tiimkaas oo wada socdaanoo meesha ay gudoomiyaha ay la socdaan musharaxa ay la socdaan warkiisa markiiba ay maxaan ku raahdaa ay soo fulin doonaan iyagana saddex waanu dadaan soo xulnay ayaan maxaan ku raahdaa ayaan u soo magacawnay saddexda xisbiba waxaan u raacay waxa weeye waa laba qaybood oo ah sida loo kala leeyahay wuxuu yiri afayeenku waqti isku mid ah ayaa laga siinaya waqti isku mid ah haday mid maxalli tahay haday mid dawladeed tahayba waxa laga siinaya waxa weeye waa barnaamijyada xisbiga mid waliba ku leeyahay ayaa laga siinaya waxa kale oo laga siinaya maxaan ku raahdaa wararka oo dalka oo dhan maalin buu leeyahay wariyaasheedu dalka oo dhan bay ku baahsan yihiin oo radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka waxa weeye amar cad bay qabaan in maxaan ku raahdaa maalin walba xisbiga uu leeyahay xisbiga maalintaas leh in maxaan ku raahdaa coverage-kiisa maxaan ku raahdaa sida rasmiga ah maxaan ku raahdaa loo gaadho oo meel kasta oo hawl ka socoto la gaadho gobolada oo dhan marka waxa weeye saddexda way ka baxsan yihiin kuwa kale ka fargareynayay eventska badan ee maalinta dhacaya waa wax maxaan ku raahdaa ka baxsan xisbi walbana waxaanu ka rabnaa barnaamij 15 minutes waanu xisbi oo barnaamijkooda da xisbi waanu habeenkii mid walba maxaan ku raahdaa aanu sii deeyno sidii horeba aan u ballan qaadnay haddaanu bahda saxaafadana runtii in wax kasta oo loo dhigay hadday noqoto axsaabta hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto xeerarka guud ee dalka u yaalay doorashooyinka runtii aanu tixgelino sidooda ugu dhaqanno qolo waliba kaalin bay ku leedahay annaga kaalintaanu ku leenahay ugu weyn waxa weeyaan inaanu dhexdhexaad ka noqono wixii halkaa ka baxaya waayo annagu xisbina ma nihin wasaaradiina ma nihin marka qolooyinka xisbiyada qolada kale waxaan u sheegaynaa horta inaanu anagu dhexdhexaadnahay wixii naloo dirto ee halkaa nalooga igmado ee qolada ku shaqada leh commissionku ay noo diratana inaanu u qaban doono annagana waxaanu ballan qaadana ilaahay inaanaan dartii cidna u kala yaxan waa caleemasaarkii cidda oraxaydi mas-uul loo cumaamado cidda oraxaydi